السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena gorfeynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah agaasimaha Arsenal oo isaga tagay kooxda kubadda cagta ee Arsenal halkee ayuu marayaa tartanka gool dhalinta horyaalka Premier League gool dhalinta tartanka La Liga Spain oo meel xiisa la maraya Carlito sheegay in Fini uu niyo jabsan yahay Mohamed Salah oo dhaafay haliyay Liverpool tartanka gool dhalinta wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ayaan sidoo kale ka maqnayn aynu ku bilownay agaasimaha ciyaaraha Arsenal Edu ayaa kooxda ka tagi doona dhamaadka xilli ciyaareedkan ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe kooxda Arsenal mas'uulna ka ahaa shaqada wanaagsan ee kooxda dhanka suuqa kala iibsiga sanadadii ugu dambeeyay shaqada uu ka garabsiiyay Mikel Arteta ayaa keentay in si weyn loogu fikiro mid ka mid ah agaasimayaasha ugu fiican kubadda cagta sida laga soo xigtay Daily Mail Edu ayaa ka tagi doona kooxda kadib wadahadalo uu la yeeshay madaxda kooxda warbixinta ayaa lagu sheegay in 24 saac soo socota la filayo xog dheeri oo ka soo baxda arinka Edu ayaa ku soo laabtay kooxda 2019 kadib markii uu ciyaaray 127 kulan intii uu joogay Arsene Wenger shaqadiisa suuqa kala iibsiga ayaa ka caawisay in Arsenal ay si fiican ugu tartanta koobab isagoo kooxda keenay xidiga ay ka mid yihiin Martin Odegaard iyo Declan Rice tartanka Premier League ayaa meel xiisa la maraya iyadoo Haaland uu weli hogaaminaya tartanka gool dhalintiisa inkastoo aan wax gool dhalinin kulankii toddobaadkan Haaland ayaa weli hogaaminaya tartanka gool dhalinta horyaalka Ingiriiska Haaland ayaa leh 11 gool ilaa ay haatan horyaalka Premier League kadib 10 kulan oo la ciyaaray horyaalka dhinaca kale waxa ku xiga xidiga Bryan Mbeumo ee Brentford iyadoo Chris Wood oo u ciyaara Nottingham Forest ay isku goolal yihiin haddaba waa sidee gool dhalinta tartanka horyaalka Premier League Erling Haaland ayaa 11 gool leh Bryan Mbeumo 8 gool Chris Wood 8 gool Cole Palmer 7 gool Mohamed Salahna 7 gool ayuu markaasi soo maraya isagana dhanka kale laacibka reer Brazil Rafinha ayaa kor u qaaday gool dhalintiisa horyaalka La Liga xilli ciyaareedka 2024-25 kadib markii uu dhaliyay gool kulankii ay kooxdiisu la ciyaartay Espanyol Barcelona iyo Espanyol ayaa isaga hor yimid kulan ka tirsan horyaalka La Liga Spain toddobaadkii 12aad Rafinha ayaa dhaliyay gool daqiiqadii 23aad ee ciyaarta wuxuuna kor u qaaday dhalintiisa goolasha horyaalka xidiga Rafinha ayaa goolkiisa kor ugu qaaday 7 gool wuxuuna ku jiraa kaalinta labaad ee kala sareynta isagoo haatan ka dambeeya xidiga isku kooxda yihiin Robert Lewandowski kaasi oo 14 gool leh haddaba waa sidee kala sareynta horyaalka La Liga dalkaasi Spain Roberto Lewandowski 14 gool Rafinha 7 gool Ayuso Perez 7 gool Ante Budimir 6 gool Kylian Mbappe 6 gool Lamine Yamal 5 gool Vinicius Junior 5 gool Lo Celso 5 gool Dudi 5 gool ayuu markaasi leeyahay Dani Olmo isaguna 5 gool ayuu markaasi leeyahay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Carlito ayaa ka hadlay Vinicius Junior oo aan loo caleema saarin Ballon d'Or-ka Madrid ayaan ciyaarin usbuucan horyaalka Spain sabab la xiriirta duufaantii Dana ee ka dhacday Valencia taasi oo keentay in ciyaartii dib loo dhigo kooxda Madrid waxay la kulmi doontaa dhigeeda Milan kulanka Champions League ee ka dhici doona garoonka Santiago Bernabeu Carlito ayaa shirkiisa jaraa'id kulankan ka yiri Vinicius runtii aad ayuu murugaysan yahay dhammaanteena waanu murugaysannahay laakiin ma aha Ballon d'Or-ka laakiin waa xaaladda Valencia aad ayaan uga xunnahay arintaasi wuxuu intaasi ku daray ma gaari karno go'aan ciyaaryahan ahaan dhammaan tababarayaasha waxay doonayeen inay joojiyaan ciyaaraha qaar ayaa ciyaaray qaar kalena ma aysan dhicin laakiin ugu dambeyntii waxaan rajaynaynaa inaan dhacdadani ay dhammaato si nabad leh isagoo hadalkiisa sii wata Viniciusna ka hadlay xaaladiisa waxa uu markaasi yiri Carlito waa wax dabiici ah inaad ka murugooto laakiin waa uu gartay waxa dhacaya nasiib wanaag waxaan helnay nasasho mana aanan ciyaarin sabtidii Vini si fiican ayuu u tababartay sidoo kale ciyaartooyda kale si fiican ayay u tababarteen Mohamed Salah ayaa haatan si toos ah ugu jira liiska ciyaartooyda abid ugu goolasha badan tartanka Premier League kadib goolkii guusha ee Liverpool uu dhaliyay kulankii Brighton
xidiga masaarida ayaa daqiiqadii 72 ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Liverpool isagoo ka ciyaaraya garoonka Anfield iyadoo Reds ay dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Ingiriiska iyagoo uga mahadcelinaya guuldaradii lama filaanka ahayd ee Manchester City ka soo gaartay Bournemouth. waa goolkii 164 ee Premier League 273 kulan oo uu saftay tartanka marka laga reebo laba ka mid ah goolashaasi Liverpool ayuu u dhaliyay isagoo kaliya labadaasi goolna u dhaliyay kooxda Chelsea. ka hor intaanu shabaqa soo taabanin kulankii Brighton, Salah ayaa la goolal ahaa xidiga Robin Fowler kooxda kubadda cagta ee Liverpool lejanka kaasi oo 163 gool ay wada lahaayeen, laakiin goolkiisa ayaa ka dhigay 164 gool oo u dhaliyay taasi oo ka dhignaatay in kaalinta 8aad kala sareynta abid ciyaartoyda ugu goolasha badan Premier League uu soo galo. haddaynu markan fiirino suuqa kala iibsiga iyo wargeysyada waxyaabaha ay ka qorayaan, Paris Saint-Germain ayaa dalab 95 milyan oo euro ka gudbisay daafaca dhexe ee kooxda Arsenal William Saliba. lacagta iibinta Saliba ayaa loo isticmaali karaa in lagu qarash gareeyo saxiixa xidiga qadka dhexe West Ham Mohamed Kudus kaasoo Arsenal ay u soo qaadan karaan marka uu baxo Lisandro Trossard oo laga yaabo inuu Sacuudiga aado. Liverpool ayaa daba socota ciyaaryahanka qadka dhexe Barcelona Marc Casado waxayna aaminsan yihiin in 22 sano jirkan uu sameyn degdega ku yeelan karo kooxda Arne Slot. Manchester United iyo Newcastle ayaa sidoo kale isha ku haya. Barcelona ayaa laga yaabaa inay lumiso xirfadda da'da yar ee Manchester City lacag 70 milyan ay kula wareegto ciyaaryahanka daafaca dhexe Paul Kubarsi. saraakiisha Chelsea ayaa isku diyaarinaya inay dhageystaan dalabyada bisha Janaayo ay ku iibinayaan daafacooda dhexe ee Badashali. xoojinta weerarka ayaa furo u ah qorshaha Manchester City sanada 2025. dalab 150 milyan ay u gudbin karaan xidiga garabka weerarka Real Madrid Rodrigo, halka Frankfurt ciyaaryahankooda Omar Mardush uu imaan karo kooxda. Ruben Amiron ayaa doonaya in Manchester United 90 milyan oo giney kula soo wareegto garabka kooxda Napoli Kvaratskhelia si uu noqdo saxiixa ugu horeeya xagaaga. Tottenham ayaa doonaysa inay la soo saxiixato ciyaaryahan cusub oo qad dhaxa suuqa kala iibsiga Janaayo, laakiin uma badna inay heli karaan ciyaaryahanka AC Milan ee Reinders. West Ham ayaa isku diyaarinaysa in 30 milyan ay ku dalbato weeraryahanka Botafogo Igor Joses bisha Janaayo. kooxo fara badan oo Premier League ayaa amaah ku doonaya weeraryahanka Paris Saint-Germain Randon Colomoni suuqa Janaayo. Tottenham iyo Juventus ayaa labaduba xiiseynaya saxiixa weeraryahanka Real Madrid Endrick kaasi oo ka tagi kara kooxda Reisben. Newcastle United ayaa ku biirtay tartanka loogu jiro garabka weerarka Brentford Brian Mbeumo kaasi oo lagu qiimeeyay 50 milyan.